fanaanka Sharma Boy ayaa ka soo muuqday baraha bulshada mar kale, balse xilligan waa ka duwanaa sidii lagu yaqiinay. Ninku markani ma aha fanaan oo ma wato mikrofon, ee waxa uu sitaa qori AK-47 ah, weliba isaga oo dhexda uga jira askar sidata dareyska ciidanka. Wuxuu ku sugan yahay magaalada caasimadda u ah maamulka Puntland ee Garowe, halkaas oo la xaqiijiyay inuu aaday maalintii shalay sababo la xiriira dagaalka dhinaca afka ahaa ee u dhaxeeyay Daahir Calasow iyo isaga. Sharma Boy iyo Daahir xiisadoodu waxay ka bilaabatay bandhig faneed ay magaalada Muqdisho ku qabanayeen laba koox oo fanaaniin ah, kuwaas oo ay u kala safteen labada koox ee fanaaniinta ahaa, iyaga oo mid ka midka kaleba doonayay in showga uu noqdo mid wanaagsan oo dadku ay ku soo jabaan. Muuqaalka horta leh ee hadda soo baxay ayaa muujinaya in Sharma Boy uu dagaalka afka ahaa u bedelay dagaal hubaysan, iyo sidoo kale mid la isku soofaynayo beelaha Soomaalida, kadib markii si toos ah uu u sheegay inuu yahay nin ka dhashay mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo uusan marti noqonaynin una noqon doonin qabiil kale. Waxa uu wacad ku maray inuu iska dhicinayo Daahir Calasow, weliba marka uu hadalkan oranayay waxa uu kor u taagayay qoriga AK-47 ah. Daahir weli kama hadlin arrintan, hase ahaatee hadda waxay u muuqataa in dagaalku isku bedelay dhinaca kale. Marka laga hadlayo Sharma Boy, waxa uu ahaa fanaan da'yar ah oo aan lagu baran arrimo la xiriira qabiilka, waxaana uu Muqdisho oo uu yimid ka noqday xidig faneed. Balse muuqaalkan iyo dhowr muuqaal oo kale oo hobolku uu ugu gafay beelaha Soomaaliyeed waxay dhaawacaysaa xirfadiisa, waxayna sidoo kale hoos u dhigaysaa sharafkiisa. دار على سو معلبة على سو انا بريد انا جدنا وحق الله على سو مع الله يلا نادي على سو اي يا واكاسا يلدلكيس جو يلدلكيس شريف اه koox dhalinyaro ah oo isku dayaysay inay xaliso khilaafka Sharma iyo Daahir ayaa sheegay in hadda tala farahoodu ka baxday sabab la xiriirta muuqaalkan qaab ahaan aan wanaagsanayn, lagana filaynin qof fanaan ah oo bulsho badan ku xiran tahay. Saacadaha soo socda waxaa la sugayaa in falcelin bulsho ka dhalato arrintan, tan oo sidoo kale sare u qaadi karta xiisadda. Marka laga hadlayo taageerayaasha Sharma, waxaa dhici karta in sidoo kale uu lumiyo taageerayaal badan, sababtoo ah dadka Soomaaliyeed ma jecla inay fanaanka ku arkaan arrimo qabiil isaga oo ka hadlaya, iyadoo dad badan aanay ogeyn qabiilka uu yahay, horeyna ugu taageeray xirfadiisa iyo hibadiisa faneed. Haddaba daawade, adigu sideed u aragtaa in fanaankii Sharma Boy la arko isaga oo qori wata isla markaana u hanjabaya qof kale oo isaysteen, weliba isaga oo magac sheegaya beel Soomaaliyeed, dagaalna ku baaqaya? Aragtidaada qaybta hoose inoogu reeb.